waxaa cabsi xoogan laga qabaa in dagaalo toos ah ay ka dhacaan fadhiga baarlamaanka ee qabsoomaya Arbacada soo aadan kaasi oo lagu ansixinayo 4 cutub ee ugu horeysa dastuurka ee ay dooda ka yeeshaan xildhibaanadu soo jeedinta ee tala bixintana ay ka sameeyaan. guddoonka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xildhibaanada u diray fariin ah inay isku soo diyaariyaan Arbacada in ay ka qayb qaataan wax ka bedelka dastuurka ansixintiisa 4 cutub ee ugu horeysa. xildhibaanada ayaa u imaan doona sidii cod gacantaaga ay ugu ansixin lahaayeen 4 cutub. waxaa dhankooda diyaargarow xoogan muujinaya xildhibaanada mucaaradka oo qorsheynaya in ay buuq iyo fowdo ka dhaliyaan fadhigaas, iskuna dayi doona inay hor istaagaan wax ka bedelka dastuurka ee la doonayo in la mariyo baarlamaanka isla markaana xildhibaanadu ay u codeeyaan. cabsi xoogan ayaa ka jirta fadhigaas baarlamaanka ee qabsoomaya Arbacada, waxaana dowladdu ay haddaba sii diyaarisay ciidamo badan oo loogu talagalay in amniga xarunta Villa Hargeysa ay adkeeyaan iyo in sare loo qaado goobaha hubinta xildhibaanada soo galaya fadhiga si looga fogaado in xildhibaanada qaarkood hub ay la yimaadaan, maadaama horey fadhiyo baarlamaanka u yeesheen oo qaarkood fowda ay ka dhacday. la sheegay xildhibaanada qaar in ay bistoolada wateen. si arrintaas looga feejignaadana waxaa dowladdu ay diyaarinaysaa goobo hubintooda ay adag tahay oo xildhibaanada lasoo marsiiyo iyo ciidamo amniga gudaha iyo dibadda intaba si adag u adkeyn karaa. si kastaba waxaa isha lagu wada hayaa waxyaabaha ka dhici kara fadhiga baarlamaanka Arbacada soo aadan, iyadoo halkaas laga cabsi qabo in qalalaase ay ka bilowdaan, halka xubnaha dowladda ka tirsan rajo wanaagsan ay ka muujinayaan in iyada oo wax fowda aysan dhicin la meel marin doona 4 cutub ee ugu horeysa dastuurka ee wax ka bedelka lagu sameeyay si loogu gudbo cutubyada kale ee dastuurka doodoodana xildhibaanadu ay u guda galaan. inta 4 cutub doodooda ay socotay waxaa mucaaradka ku biiray xildhibaano horey ula safnaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda la sheegay badankood inta bashooyinkooda la qanciyay loona ballan qaaday xilal in lagu abaal marinayo amaba la meeleynayo shakhsiyaad siyaasad ahaan iyagu ay wataan oo dowladdu xilal ay u dhiibi doonto. xubnahan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa kulamo kula qaatay madaxtooyada Soomaaliya, waxaana ugu dambeyntii lagu qanciyay inay hoos u dhigaan qayladooda ku aadan waa dhamaystirka dastuurka dalka. xildhibaanadan ayaa gaarayay ilaa 17 mudane. kulamo ay ku yeesheen Muqdisho ayayna ku hadleen luuqad la mid ah tan mucaaradka. haddase waxaa u muuqataa in dowladda federaalku baanad siyaasadeed ay u adeegsatay kala furfurista hoggaanka mucaaradka iyo sidoo kale xildhibaanada. dhankooda madaxda mucaaradka ayaa dadaal xoogan waxay gelinayaan sidii kulankaas uusan miro dhal u noqon lahayn oo aan loo meel marin lahayn 4 cutub ee wax ka bedelka lagu sameeyey. waxaase ay u badan tahay in qorshaha mucaaradku uu la mid noqon doono shirkii Garowe ee dhicisoobay noqon waayena sidii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay ka rabeen ay ahayd in Siciid Cabdullaahi Deni uu ku taageero dagaalka siyaasadeed ee dowladda ay ku wajahayaan. waxaana suurtagal ah in sidaas si la mid ah qorshahoodan ku aadan 4 cutubna uu noqdo, walow digniino culus ay soo saarayaan oo xitaa beesha caalamka dacwada ay gaarsiiyaan mucaaradku, ayna ka digayaan in dastuurka oo dowladdu ay u diido in ay dhankooda ka soo galaan mucaaradku amaba taladooda la dhegeysan waayo, dagaallo ay gudaha dalka ka dhalin karto, iska horimaadyana ay abuuri karto.